kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada sheekada waayihii warsame. Sheekadan waxay noqon doontaa mid taxana ah inaga oo ku soo qaadan doona hadba qaybteeda koobaad ayaanu maanta soo qaadan doonaa. waxa uu ku fadhiyaa kursi ka samaysan alwaax oo la dhigay fikta sare ee qarka ka foorara badweynta Pacifiga ee xeebta bari ee Australia. dhanka galbeedka waxa kaga muuqda raadka qorrax gadkeeda ku sii carrawday. falaaraha isdhaafaya ee cadceedu waxa ay soo xasuusiyeen heestii hobalkii Allah u naxariistay Cumar Dhuule Cali ee ahaa Fad Galbeed ka muuqdo fooda dahab la moodo tii sagal ku fooraro qaybsaday falaaraha ama u xafayoobo aan fara la saarin sidiisa nuurkaa ku fidayaa صوت مربى فوتيو dhanka waqooyiga daaraha ifaya ee cirka ku shareeran waa muuqaalka magaalada saddexaad ee ugu weyn Australia ee Brisbane oo aad guud ahaanba aad ka dheehan karto hodantinimada iyo horumarka dalkaasi. balse isagu wuxuu og yahay wax walba inaan waxba ka gelin waxa ifaya iyo waxa cirka ku shareeran. waayo wuxuu og yahay inuusan waxba ka lahayn hantida u muuqata dhowr arrimood dartooda. tan ugu horeysa waa inuu yahay marti, tan labaadna inuusan lahayn dab iyo aqoon oo dhinaciisa uu kaga cuno barwaaqada u muuqata miduu hadda kadib barta mooyaane. arrinka dambe ayaa laabtiisa dab leeb ah ku ganaya, maxaa yeelay ma laha tab iyo farsamo aqooneed oo uu leeyahay oo dadyowga kale ee dalalka caalamka ay leeyihiin. haddii uu isku qanciyo qaxooti baa tahay, waxaa jira kuwa badan oo qaxooti ah kana yimid Asia, Afrika iyo Amerika, balse iyagu leh aqoon iyo tab ay ku shaqaystaan markii ay dalkooda ay ka yimaadeen ay soo barteen. talankaasi waxa uu dhex muquuriyay waayihii madoobaa ee uu soo maray, waxaana ay ka dhigeen mid aan dareenkiisu sugnayn oo gebidhaclaynaya. waxaana uu ka qoomamaynaya falal badan oo uu geystay iyo eedo uu galay. taasi waxay gebi ahaanba ay humaag mugdi iyo hubanti la'aan ay gelinaysaa aayihiisii nololeed. waxaanay u muujinaysaa quus iyo inuu ifka uu ku soo qaldamay oo uusan mudnayn nolosha maantay. maya, anigu xulasho ma lahayn ee eebbe ayaa lahaa go'aanka aanu ifka ku imid ayuu laabtiisa oo ku dhisanayaa. waxa uu dhagaha u gashaday xarigga maqalsidaha ah ee moobilkiisa suran, kadibna waxa uu daartay heestii hobalkii weynaa Cabdulaahi Yuusuf Hanuuniye ee magaceedu ahaa Amaanoy ku bixin waaye. ku bixin waayey abaalow ku gudi waayey aqooney ku bogan waayey axdiyo oo ku lumin waayey eedey ku sidii waayey eexaay ku fali waayey afeefey ku mari waayey adduunyoy ku qaban waayey ku qaban waayey samirow ku aaminay. naftiisa ayaa ku susabayaa heesta oo karka iyo kuleelka haya ayaa uu xoogaa kaga jaba mar walba uu dhagaysto. naftiisa ayuu isku dayayaa inuu ka dhayo boogo iyo dhaawacyo hore oo ku soo maaxanaya. dadku waxay u yaqaanaan amaba ay u arkaan nin dhalinyaro ah oo iska xamaasha aadna u afgaaban, waana ay tixgeliyaan. waa nin furfuran oo dhoola caddayn dadka u muujiya, balse taasi waa midda muuqata ee dadku arkaan. warsame waxa uu wehel u yahay walwal iyo walbahaar. waa inoo qaybta dambe ee nabadgelyo.